waxaa jira saddex waxyaabood oo dib dambe kugu soo laabanay mar haddii gacantaada ka baxaan. Midda koowaad waa waqtiga, tan labaad waa hadalkaaga, tan saddexaad waa waalidiinta adiga ku dhalay. Siba waalidku qiimo gooni ayuu leeyahay. Ma jiro qof nool oo ebid kuu jeclaan karo in ka badan inta ku jecel yahay waalidiintaada. Sidaa daraaddeed isku day inaad waqti la qaadato iyaga intaad ka awoodid maalinkaaga, sababtoo ah maalin maalmaha ka mid ah markaad dib ugu soo jeesatid noloshaada wada mashquulka badneed, dunidiisii ma joogi doonaan. Xusuusnow, waxa kaliya een garwaaqsanaa qiimaha waalidka dhabta ah marka ay dhintaan ee wax walba xusuus ay nagu noqdaan. haddaba bilaahi calayk, haddii waalidiintaada ku nool yihiin, haddii aad waddanka ka fog tahay, isku day inaad waalidkaada ka farxisid, waqtina la qaadatid. intaad waalidiintaada raalli ka yihiin, ilaahina subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa naqanayaa raalli.